مرة ما فكرتي inaad u baahan tahay barashada dhammaanba luqadaha programming-ka si aad u noqoto developer aad u heer sareeya aqoon fiicanna u leh programming-ka hagaag haddaba fikraddaasi waa mid aad u khaldan waxaynu muuqaalkeena maanta kusoo qaadanaynaa sababta ay muhiimka u tahay inaad master ku noqotid keliya ka dhowr luqadood intaad wada baran lahayd dhammaanba luqadaha programming-ka amaba luqado badan soo dhawaada dhalinyaro luqadaha programming-ku waxay u dhisaangalaysan yihiin oo ay u samaysan yihiin hadafyo iyo shaqooyin khaas ah inay fuliyaan oo ujeedooyinkaasi loo adeegsado tusaale ahaan labadan luqadood ee Python iyo JavaScript waxaa u jira laba kale ujeedo oo kala fog Python meelaha loogu talagalay in lagu adeegsado waxa ka mid ah machine learning-ka iyo data science-ka halka JavaScript loo adeegsado web development-ka ama samaynta websites-ka marka inaad labadoodaba barataa waa arrin fiican laakiin waa inay ku caddahay hadafyada aad ka rabto inaad u adeegsato si aad safgaraysato waqti iyo dadaal kaaga bixi lahaa luqado aadan u baahnayn markaad baranayso programming-ka waa inay ku cad yihiin ujeedooyinka aad luqad kasta u baranayso waxaa sidoo kale jira imaaba marka dambeysa ay soo caanbaxayaan luqado cusub tusaale ahaan in badan ayaa samaynta sistamyada loo adeegsan jiray luqadda Java iminkana waxaa si weyn ugu soo caanbaxay luqada ay ka mid tahay Rust qodob kale oo muhiim ah ayaa sida jira waana in markaad baranayso luqado badan oo kala duwan waxaad kaliya baranaysaa dusha sare ee luqadahaasi hoosna ma dhaadhacaysid taasina waxay sababaysaa inaad miskarayso konseptiyo ama faham badan ood ka qaadan lahayd luqadaasi waxaana habboon in luqadaha programming-ka ee aad baranayso aad u barato si deeply ah oo aad fahamto konseptiyada iyo qaybaha ugu muhiimsan ee luqadaas ku dhisan tahay xitaa waxaa muhiim ah inaad barato qaabka ay luqadaasi u shaqayso ay ula falgasho environment-ka ku shaqayso waxaa sidoo kale jira xirfado ay ka sameyn yihiin dhammaanba luqadaha programming-ku waxaana ka mid ah problem solving-ka fahamka algorithms-ka iyo data structures-ka haddaad si fiican u dhisato xirfadahanna waxay qayb weyn ka qaadanayaan inaad master ku noqotid luqadaad markaasi baranayso marar badanna aad ka maaranto inaad barato luqad cusub si aad u xaliso problem tusaale ahaan games fiican ayaad ku dhisi kartaa Python iyo frameworkskeeda adigoon adeegsanayn luqadaha gameska lagu dhiso sida C++ ama C#. waxaana tan ku saamaxaya fahamka dhigliga ah ee aad ka haysato luqadaasi iyo frameworkskeeda dhanka kale waxaa marar badan arkaysaa in xagga shaqaaleysiinta la doorbido dadyo ku fiican luqado khaas ah oo lama rabo qof luqado badan wax ka aqaana keliyata inaad dhowr luqadood master ku noqoto ama aad ku fiicnaato ee halkaasina faa'iido ku keeni karta ugu dambayn waxay muuqaalkeena kusoo gabagabeynaa inay muhiim tahay inaad barato dhowr luqadood oo si aad ah ula xidhiidha fiilka programming-ka aad haysanayso tusaale ahaan web development-ga aad haysanayso waa inaad barataa luqadaha ugu muhiimsan web development-ga oo ay ka mid yihiin HTML CSS JavaScript SQL iyo TypeScript sidoo kale dad haysanayso barashada machine learning-ka waxaa muhiim ah inaad focus ka saarto luqado ay ka mid yihiin Python iyo R haddaad haysanayso barashada web development-ga ama samaynta mobile applications-ka yana waxaa jira luqado aad ugu fiican waxaana ka mid ah luqado ay ka mid yihiin Kotlin Swift iyo Dart sidaasoo kale waxaa muhiim ah inaad baradho luqadaha aad kula xidhiidha fiilka aad xiisaynayso ama aad rabto inaad ka noqoto professional oo si xeel dheer u barato ha isku dayaalin barashada luqado badan oo aan la xidhiidhin fiilkaaga ka u safgaraysto energy iyo waqtiba la wadaag muuqaalkan asxaabtaada una soo biir geetar Soomaali mahadsanid